Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Taariikhda dunida waxaa jira dhacdooyin waaweyn oo qofku markuu maqlo uu la yaabayo sida iimaanka iyo xaqiiqadu ay qalbiyada dadka u beddeli karaan. Waxaa jira sheekooyin aanan ahayn sheekooyin la iska aliftay ama la iska sheego, balse si toos ah ugu yimid oo ku soo arooray Qur'aanka Kariimka ah iyo axaadiista sugan ee Nabi Muxammad calayhi salaatu wassalaam. Qisada aan maanta ka sheekaynayno waa qisadii Asxaabul Ukhduud, oo ahayd mid ka mid ah qisooyinka ugu cajiibsan ee taariikhda bani'aadamka. Waa qiso ka warramaysa wiil yar oo aanan nebi ahayn, haddana uu Alle Subxaanahu wa Tacaala ku galladaystay karaamooyin waaweyn. Waa qiso ka warramaysa nin caalim ah oo dadka ku hagaya tawxiidka. Waa qiso ka warramaysa boqor daalim ah oo dulmi badan oo isku sheegay in uu Ilaah yahay. Waa qiso ka warramaysa dad xaqa qabsaday iyagoo loogu hanjabayo dab iyo geeri iyo in la layn doono. Dhacdadan aadka u weyn waxay dhacday qiyaastii sanadkii 500aad ee miilaadiga, ku dhowaad 100 sano ka hor dhalashadii Nabi Muxammad calayhi salaatu wassalaam. Xilligaas magaalada la yiraahdo Najraan waxaa ka talin jiray boqor la oran jiray Dhunnuwaas. Boqorkani wuxuu ahaa nin aad u dulmi badan. Dadkiisa wuxuu ku maamuli jiray cabsigelin iyo xoog sheegasho iyo ciqaab aad u daran. Ujeedadiisu waxay ahayd in dadku ay isaga caabudaan oo ay u arkaan in uu yahay Ilaaha awoodda leh ee xaqa ah. Si uu arrintaas u xaqiijiyo, wuxuu adeegsan jiray sixir, khiyaano iyo marin habaabin aad u tiro badan. Boqorku wuxuu lahaa saaxir caan ah oo muddo dheer dadka ku marin habaabin jiray sixir iyo khiyaanooyin uu dadka ugu muujin jiray in boqorku leeyahay awoodo aanan caadi ahayn. Dad badan ayaa rumaystay beentiisa. Waxay aaminsanaayeen in boqorku yahay qof ka sarreeya bani'aadamka caadiga ah. Balse xaqiiqadu waxay ahayd in boqorku uu ahaa qof bani'aadam ah oo daciif ah sida dadka kale ee bani'aadamka oo kale. Muddo kadib, saaxirkii weynaa waa uu duqoobay, da'dii ayaa ku badatay, caafimaadkiisuna waa uu sii xumaanayay. Maalin ayuu boqorkii la fadhiistay sida caadiga u ahaydba, kadibna wuxuu ku yidhi, "Waxaan noqday nin duq ah, awooddaydii waa ay sii yaraanaysaa. Waxaan ka baqayaa in aan geeriyoodo ka hor inta aanan cid kale barin siraha sixirka. Haddii aan dhinto, sixirku waa uu dhammaan doonaa." Sidaas darteeda wuxuu boqorka ka codsaday in loo keeno wiil yar oo aad u caqli badan, si uu ugu tababaro sixirka, kadibna uu u noqdo saaxirka cusub ee boqortooyada. Boqorkiina waa uu aqbalay codsigiisa. Isla markiiba wuxuu amar ku bixiyay in boqortooyada oo dhan laga raadiyo wiilka ugu garaadka badan ama ugu caqliga badan. Raadintaas dheer kadib, waxaa la soo helay wiil aad u maskax badan. Wiilkaas ayaa loo keenay boqorka. Boqorkuna aad buu ugu farxay. Wuxuu u sheegay in uu noqon doono saaxirka cusub ee boqortooyada. Wiilkii markii hore arrintaas aad ayuu ugu farxay. Wuxuu moodayay in uu helay fursad uu ku noqdo qof caan ah oo maalqabeen ah. Maalintii xigtay ayuu wuxuu bilaabay tababarkii. Saaxirkii weynaa ayaa maalin kasta wax cusub bari jiray. Dhanka kale, boqorku wuxuu siin jiray hadiyado aad u tiro badan, dhar qaali ah iyo lacago fara badan. Wax kasta waxaa loo samaynayay si qalbigiisu uu ugu xirnaado sixirka iyo u adeegidda boqorka. Maalin walba, wiilku wuxuu ka soo bixi jiray gurigiisa si uu ugu safro qasriga boqorka. Balse jidka u dhexeeyay gurigiisa iyo qasriga boqorku wuxuu ahaa mid aad u dheer, ama labada guri ayaa aad u kala fogaa. Marar badan ayuu socodka ku daali jiray, mararka qaarkoodna waa uu fadhiisan jiray waddada si uu u nasto. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu isagoo jidka ku nasanaya wuxuu maqlay cod aanan caadi ahayn. Codkaasi wuxuu ka imaanayay aqal yar oo jidka dhinaciisa ku yaalay.
markii uu dhagaystayna wuxuu maqlay nin duq ah oo Alle subxaanahu wa tacaala baryaya. Ninkaasi wuxuu ku celcelinayay erayo deggan oo qalbiga taabanaya. Wiilkii markii ugu horreysay noloshiisa wuxuu maqlay hadallo ka duwan sixirkii iyo khuraafaadkii uu maalin walba maqli jiray. Wuxuu dareemay xasillooni iyo degganaan qalbigiisa soo galaysa. Inkastoo uusan fahmin macnaha erayada oo dhan, haddana wuxuu dareemay in hadalladiisu ay ka duwan yihiin wixii uu horay u maqli jiray. Wuxuu isbarbar dhigay hadalladii saaxirka ee aysan cidina fahmin iyo ducada ninkan duqa ah ee fudud ee quruxda badan ee xasilloonida leh. Maalintii xigtay mar kale ayuu istaagay agagaarkii aqalkaas ama agagaarka mawlacii uu ninku ku jiray. Wuxuu dhagaystay ducooyinkii iyo cibaadadii ninkaasi uu samaynayay. Maalmo badan ayuu sidaas sameeyay, qalbigiisana waxaa ku sii kordhayay jacayl iyo xiisayn gaar ah. Wuxuuna doonayay in uu ogaado ninkaasi cidda uu yahay. Wuxuu doonayay in uu ogaado Ilaaha uu ninkani caabudo. Maalin ayuu wuxuu go'aansaday in uu gudaha u galo. Markii uu galay ayuu wuxuu arkay wadaadkii xaqa ku taagnaa oo cibaadaysanaya. Ninkaasi wuxuu ahaa nin Alle subxaanahu wa tacaala yaqaana oo tawxiidka halkaas dadka ku bara. Wuxuu ahaa nin ku adkaystay xaqa, inkastoo boqorku uu dadka ku khasbayay shirkiga iyo baatilka. Kadibna wiilkii ayaa la fariistay. Maalintaas ayaa noqotay maalin beddeshay noloshiisa gebi ahaanba. Wadaadkii ayaa bilaabay in uu u sharaxo in Alle subxaanahu wa tacaala yahay kan abuuray samooyinka iyo dhulalka, iyo in Alle subxaanahu wa tacaala uu yahay kan dadka quudiya, iyo in Alle subxaanahu wa tacaala uu yahay kan bixiya nolosha iyo dhimashadaba, iyo in aanan la caabudi karin cid aanan ahayn Alle subxaanahu wa tacaala oo keliya. Wiilkii si weyn ayuu uga helay ninkan wadaadka ah hadalladiisa, qalbigiisuna waa uu u furmay. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee uu maqlo xaqiiqada dhabta ah ee nolosha. Wuxuu fahmay in boqorka la caabudo uusan ahayn Ilaahi Allihii xaqa ahaa. Wuxuu fahmay in boqorku yahay qof caadi ah oo aanan xitaa naftiisaba waxba u tari karin. Wadaadkii ayaa markaas si tartiib tartiib ah ugu bilaabay in uu baro tawxiidka. Wuxuu baray sida Alle subxaanahu wa tacaala loo caabudo. Wuxuu baray sida loo tukado. Wuxuu baray sidii uu qalbigiisa ugu xiri lahaa Rabbigiisa subxaanahu wa tacaala. Maalmaha ayaa isdaba marayay oo isdaba gurayay. Wiilkii wuxuu noqday mu'min dhab ah, balse weli wuxuu ku qasbanaa in uu maalin kasta u tago ninkii saaxirka ahaa, sababtoo ah amarka boqorka ayaa dul saarnaa. Qalbigiisu hadda sixirka waa uu necab yahay, waayo wuxuu ogaaday in sixirku uu yahay shay baatil ah. Wuxuu ogaaday in saaxirku uu yahay beenaale dadka marin habaabiya, balse ma awoodin in uu iska daayo tagista ama u tagista ninkii saaxirka ahaa. Sidaas darteed wuxuu ku noolaa nolol laba dhinac leh. Dhinac wuxuu ka baranayay tawxiidka iyo iimaanka. Dhinaca kalena wuxuu ka baranayay ama ku qasbanaa in uu hortago ninkii saaxirka ahaa. Intii uu wakhtigu socday, dib u dhacyadiisii ama soo daahitaankiisii ayaa batay. Markii uu wadaadka la fariisto ayuu wuxuu ka daahi jiray ninkii saaxirka ahaa. Markii uu saaxirka ka yimaadana gurigiisa ayuu ka daahi jiray. Taasi waxay keentay in saaxirku uu garaaco oo sidoo kale qoyskiisuna ay canaan iyo ciqaab isugu daraan. Ugu dambeyntii arrintaas ayuu wuxuu u sheegay ninkii wadaadka ahaa. Wadaadkii ayaa si xikmad leh xal ugu sheegay. Xalkaas ayaa wuxuu noqday mid badbaadiyay wiilkan muddo dheer. Markii uu wiilkii yaraa, ninkii wadaadka ahaa u sheegay dhibaatada ka haysata saaxirka iyo qoyskiisa. Wadaadku wuxuu fahmay in wiilka uu galay marxalad adag. Maalin kasta saaxirku waa uu garaaci jiray markii uu ka daaho. Markuu guriga ku laabtana, qoyskiisu sidoo kale waa ay canaanan jireen oo mararka qaarna waa ay ciqaabi jireen.
Wadaadku wuxuu ahaa nin xikmad badan, ma uusan amrin wiilka inuu dadka la dagaalamo ama uu si toos ah ugu sheego sirtiisa, balse wuxuu ku yidhi in haddii saaxirku uu weydiiyo sababta uu u soo daahay uu ku yidhaahdo qoyska ayaa dib ii dhigay ama qoyska ayaa isoo daahiyey. Haddii qoysku ay weydiiyaan sababta uu ku soo daahayna uu ku yidhaahdo saaxirka ayaa isoo daahiyey. Sidaas ayuu wiilku uga badbaaday ciqaabtii joogtada ahayd. Maalmuhu waa ay socdeen, wiilkan yar iimaankiisuna waa uu sii xoogaysanayay. Waxaa sii xoogaysanayay xiriirkii u dhaxeeyey isaga iyo Alle subxaanahu wa tacaala oo sii qoto dheeraanayay. Wadaadkiina maalin walba wuxuu barayay tawxiidka iyo sabirka iyo ku kalsoonaanta Alle subxaanahu wa tacaala. Balse Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu doonayay in dadka loo muujiyo xaqiiqada uu wiilkaasi siday. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa magaalada ka dhacday dhacdo aanan caadi ahayn. Dadkii magaalada ayaa si weyn u argagaxay. Ganacsatadii, safarraydii iyo dadkii socotada ahaa dhammaantoodu waa ay wada istaageen. Jidkii weynaa ama jid aad u weyn oo muhiim u ahaa isku socodka ayaa xirmay. Markii wiilkii uu meesha yimid ayuu wuxuu arkay xayawaan aad u weyn oo jidka taagan. Qaar ka mid ah culimadu waxay sheegeen in uu ahaa libaax weyn, halka qaar kalena ay ku tilmaameen bahal aad u khatar badan. Dadku waa ay cabsanayeen, qofna ma uusan awoodin in uu jidkaas isku maro. Carruurtii waa ay oynayeen, haweenkii waa ay qaylinayeen, raggii geesiyaasha ahaana xitaa waa ay baqayeen. Wiilkan yar ayaa istaagay, wuxuu eegay dadka baqaya. Kadibna qalbigiisa waxaa ka soo dhacay ama waxaa ku soo dhacday fikrad muhiim ah. Wuxuu is yidhi, maanta waxaan kala ogaan doonaa cidda Alle subxaanahu wa tacaala u dhow, ma saaxirka dadka marin habaabiya, mase wadaadka dadka tawxiidka halkaas ku bara. Wiilkii wuxuu qaatay dhagax yar. Wuxuu si khushuuc leh qalbigiisa ugala hadlay Alle subxaanahu wa tacaala. Wuxuu ogaaday in uusan lahayn wax awood ah oo isaga u gaar ah. Wuxuu ogaaday in guusha dhabta ah ay ka timaaddo Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa. Markaas ayuu Alle baryay subxaanahu wa tacaala. Wuxuuna ka codsaday in haddii dariiqa uu wadaadku ku taagan yahay uu yahay dariiqa xaqa ah, uu Alle subxaanahu wa tacaala dhagaxan ku dilo bahalkaas si dadku ay waddada u maraan. Kadibna wuxuu tuuray dhagaxii yaraa. Dadkii meesha joogay waxay filayeen in dhagaxaas yar uusan wax saamayn ah yeelan doonin. Balse isla markiiba dhacdo la yaab leh ayaa goobta ka dhacday. Bahalkii weynaa ayaa dhulka ku dhacay. Wuxuu ku dhacay dhulka isagoo mayd ah. Dadkii oo dhan waa ay wada yaabeen. Qof walba afka ayuu gacanta saartay. Sidee buu dhagaxaas yar u dili karaa bahalkaas sidaas u weyn? Sidee buu wiilkaas yar u samayn karaa wax rag isaga ka waaweyn oo ka xoog badani ay samayn kari waayeen? Dadku ma aysan garanaynin xaqiiqada, waxay u malaynayeen in uu sixir awood badan leeyahay. Balse xaqiiqadu waxay ahayd in Alle subxaanahu wa tacaala uu aqbalay ducadii wiilka. Tani waxay ahayd calaamaddii ugu horreysay ee muujinaysay karaamada wiilkan yar uu Alle siiyey subxaanahu wa tacaala. Markii uu jidku furmay oo dadku ay waddadii mareen, wiilku si degdeg ah ayuu wuxuu ugu tagay ninkii wadaadka ahaa, wuxuuna uga warramay wixii dhacay. Wadaadkii markii uu maqlay sheekada aad ayuu uga fikiray. Wuxuu fahmay in wiilkan yar iimaankiisu uu gaaray meel aad u sarreysa. Wuxuu ogaaday in Alle subxaanahu wa tacaala uu diyaarinayo hawl aad u weyn. Markaas buu wuxuu ku yidhi, wiilkaygiyow, maanta waxaad gaartay heer ka sarreeya kii aan joogay. Waxaan arkayaa in Alle subxaanahu wa tacaala kuugu talagalay arrin aad u weyn. Balse isla markiiba wuxuu uga digay imtixaan culus. Wuxuu u sheegay in maalin maalmaha ka mid ah dadka baatilka ahi ay ogaan doonaan xaqa uu hayo ama xaqa uu ku taagan yahay. Wuxuu uga digay in la ciqaabi doono. Wuxuu uga digay in la jirdili doono.
wuxuu uga digay in la isku dayi doono in laga leexiyo diinta. Kadibna wuxuu si gaar ah ugala dardaarmay, haddii lagu imtixaano oo lagu cadaadiyo, ha i sheegin meesha aan joogo oo aan ku suganahay, dadkana aniga ha ii soo tilmaamin. Wiilkuna waa uu ka aqbalay dardaarankiisa, balse marxalad cusub ayaa hadda bilaabatay. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu gacantiisa ku muujiyey karaamooyin aad u waaweyn. Dadka xanuunsan ayaa bilaabay in ay u yimaadaan wiilkan yar. Dad indho la'aan ah ayaa loo keeni jiray. Dad qaba cudurro aad u adag ayaa u imaan jiray. Balse wiilku weligiisa ma oran jirin, aniga ayaa ku daaweynaya. Mar kasta wuxuu dadka xasuusin jiray xaqiiqada ugu muhiimsan. Wuxuu oran jiray, anigu qofna ma bogsiiyo, Alle ayaa dadka bogsiiya. Kadibna wuxuu dadka ugu yeeri jiray iimaanka. Wuxuu ku boorin jiray in ay Alle subxaanahu wa tacaala rumeeyaan. Markii ay iimaanka qaataan ayuu Alle u baryi jiray subxaanahu wa tacaala. Markaasna Alle subxaanahu wa tacaala ayaa bogsiin jiray qaar badan oo ka mid ah bukaannadaas. Sidaas ayayna dadka ku bilaabeen in ay maqlaan magaca wiilkan. Magaalada oo dhan ayaa sheekadiisa wada maqashay oo looga sheekaysan jiray. Qof walba wuxuu la yaabanaa sida wiilkan yar uu u samayn karo waxyaalo aad u waaweyn. Balse dad yar ayaa garanayay in awoodda dhabta ah ay ka timid xagga Alle subxaanahu wa tacaala. Markii warkaasi uu faafay, wuxuu ugu dambayntii gaaray qasriga boqorka. Waxaa boqorka agtiisa joogay nin aad ugu dhawaa. Ninkaas wuxuu ahaa nin la taliye u ahaa boqorka. Wuxuu ahaa nin muddo aad u dheer indhoole ahaa. Kadibna wuxuu maqlay in uu jiro wiil yar oo dadka bogsiiya. Markii hore ma uusan rumaysanin, balse markii uu maqlay sheekooyin badan ayay rajo soo gashay. Kadibna wuxuu ururiyey hadiyado qaali ah. Wuxuu soo qaaday dahab, lacago iyo waxyaabo aad u fara badan oo qaali ah. Kadibna wuxuu u baxay wiilka gurigiisa. Markii uu yimid, wuxuu arkay dad aad u tiro badan oo albaabka dhooban. Dadku waxay sugayeen in ay u galaan wiilka. Qaar waxay doonayeen in uu bogsiiyo, qaarna waxay doonayeen in uu u duceeyo, qaarna waxay doonayeen in ay maqlaan fariinta tawxiidka. La taliyihii boqorka ugu dambayn waa uu u galay. Markii uu gudaha galay ayuu aad ula yaabay. Wuxuu ogaaday in wiilka dadka bogsiiya uusan ahayn qof kale, balse uu yahay isla wiilkii saaxirka u ahaa boqorka ee boqortooyadu ay u tababaratay inuu saaxirka u noqdo. Waa wiilkii boqorka sida aadka ah ugu dhawaa. Arrintaani aad bay uga yaabisay. Kadibna wuxuu u soo bandhigay hadiyadihii waaweynaa. Wuxuu rajaynayay in wiilku uu bogsiin doono. Balse wiilkan mu'minka ah ma uusan qaadanin dariiqii ay qaadi jireen dadkii adduunyadoonka ahaa. Ma uusan ka faa'iidaysanin sumcaddiisa. Kama uusan ganacsanin ama ma uusan ku fekerin in uu lacag ka sameeyo mucjizooyinka Alle subxaanahu wa tacaala. Wuxuu si cad ugu sheegay, bogsiintu gacantayda kuma jirto. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa wax bogsiiya. Kadibna wuxuu u sharaxay cidda uu Alle yahay subxaanahu wa tacaala. Wuxuu uga warramay Rabbiga abuuray samooyinka iyo dhulalka. Wuxuu uga warramay awoodda Alle subxaanahu wa tacaala. Wuxuu uga warramay in boqorku uusan ilaah ahayn. Ninkii indhaha la'aa aad ayuu uga fekeray. Markii ugu dambaysay, qalbigiisa ayaa u furmay. Wuxuu aqbalay xaqa. Wuxuu rumeeyey Alle subxaanahu wa tacaala. Wuxuu qiray in cidda keliya ee mudan in la caabudo ay tahay Rabbul Caalamiinka subxaanahu wa tacaala. Markii uu iimaanka qaatay, wiilkii ayaa Alle u baryay subxaanahu wa tacaala. Kadibna Alle subxaanahu wa tacaala ayaa ducadiisa u aqbalay. Ninkii indhaha la'aa ayaa mar kale wax arkay. Indhihiisii ayaa dib ugu soo noqday sidii hore. Farxaddiisa lama qiyaasi karin. Noloshiisa oo dhan ayaa isbeddeshay. Balse bogsiintaasi waxay ahayd bilowga fitno aad u weyn oo ka soo socota boqorka.
sababtoo ah markii ninkii oo bogsaday uu ku laabto qasriga boqorka, boqorku wuxuu ogaan doonaa xaqiiqada. Markaasna waxaa bilaaban doonta dagaalkii ugu weynaa ee u dhexeeyay iimaanka iyo kufriga. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. رواه مسلم. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيا قصدا إنوغا ورمي سي أي عشر ugu noqoto ummadda islaamka. qisadani ma ahan sheeko la iska yiri ama laga sheekeeyey, balse waa dhacdo dhab ah oo ka dhacday ummadihii inaga horreeyey. waxaa ku jira sabar, iimaan, geesinimo iyo sida hal qof oo xaqa ku taagan uu u beddeli karo ummad dhan taariikhdeeda. markii uu Alle subxaanahu wa tacaala ninkii indhaha la'aa dib ugu soo celiyey araggiisa, noloshiisii gebi ahaanba waa ay isbeddeshay. ninkii muddo sannado badan mugdiga ku noolaa wuxuu mar kale arkay iftiinka qorraxda, wejiyada dadka iyo quruxda dunidii uu ka maqnaa. balse waxa ugu weyn ee uu helay ma ahayn aragga indhaha, balse waxay ahayd aragga qalbiga. wuxuu helay iimaan, wuxuu ogaaday cidda dhabta ah ee iska leh maamulka kownkan. wuxuu ogaaday in boqorkii uu sannadaha badan u adeegayay uusan ahayn ilaaha xaqa ah, balse uu yahay addoon daciif ah oo u baahan rabbigiisa sida dadka kale ee bani'aadamka oo kale. maalmo yar kadib ayuu ninkii ku noqday qasrigii boqorka. sida caadada u ahayd ayuu wuxuu fadhiistay meeshii uu horay u fadhiisan jiray. boqorkii markii uu arkay aad ayuu ula yaabay. sannado badan ayuu ninkaas ku yaqaanay inuu indhola'aan ahaa. haddase wuxuu arkayaa isagoo si caadi ah wax u eegaya. boqorkii ayaa yaabay, wuxuu isweydiiyey sidee ku dhacday arrintaani. yaa awood u yeeshay in uu bogsiyo cudur ay dhakhaatiirtu daaweyn kari waayeen. kadibna boqorkii ayaa ninkii wax ka weydiiyey. wuxuu rabay inuu ka maqlo jawaab uu ku farxo. wuxuu filayay in ninku uu ku odhan doono adiga ayaa i bogsiiyey, ama inuu ku odhan doono saaxirkaaga ayaa i bogsiiyey. balse xaqiiqadu waa ay ka duwanayd. ninkii wuxuu si geesinimo leh u sheegay runta. wuxuu u sheegay in rabbigiisu uu bogsiiyey. wuxuu qiray in Alle subxaanahu wa tacaala yahay kan dib ugu soo celiyey araggiisa. markii boqorku uu maqlay hadalkaas, wejigiisu waa uu isbeddelay. caro aad u daran ayuu dareemay. sannado badan ayuu dadka ku khasbayay in ay isaga caabudaan. haddana mid ka mid ah dadkii ugu dhowaa ayaa hortiisa ka qiranaya in uu leeyahay rabbi kale. boqorkii ayaa ku yidhi, ma waxaad leedahay rabbi kale ayaa jira? ninkii wuxuu ku adkaystay xaqa, ma cabsanin, been ma sheegin, ma qarinin iimaankiisa. wuxuu si cad ugu sheegay, rabbigayga iyo rabbigaagaba waa Alle subxaanahu wa tacaala. boqorkii arrintaas ma uusan aqbalin. wuxuu amray in ninkii la qabto. ciqaab daran ayaana lagu bilaabay. waa la garaacay, waa la silciyey, si aad ah ayaa loo jirdilay. wax kasta oo awooddiisa ah ayuu boqorku ku sameeyey si uu ninkan uga leexiyo diintiisa. balse iimaanka qalbigiisa galay marnaba kama uusan bixin. markii uu boqorku arkay in uusan jebin karin ama uusan loodin karin, wuxuu bilaabay in uu raadiyo qofka sababay ama sabab u ahaa isbeddelkaas. jirdil joogto ah kadib, ninkii wuxuu tilmaamay wiilkii yaraa. sidaas ayay sirtii wiilka ku soo baxday. boqorkii markiiba wuxuu amray in wiilka la soo qabto oo la keeno. markii wiilka la hor keenay boqorka, qolkii qasriga waxaa ka muuqday xiisad aad u weyn. boqorkii ayaa eegay wiilka, kadibna wuxuu soo xasuustay maalintii loo keenay isagoo aad u yar. wuxuu xasuustay hadiyadihii iyo lacagihii uu horay u siiyey. wuxuu xasuustay sida loogu tababaray in uu noqdo saaxirka boqortooyada. balse hadda wax walba waa ay isbeddeleen. boqorkii wuxuu ku yidhi,
Waxaa la ii sheegay in aad bogsiiso dadka indhaha la' iyo dadka qaba cudurrada aadka u daran iyo kuwa aanan daawo lahayn. Waxaa la ii sheegay in aad leedahay awoodo aanan caadi ahayn, balse wiilkii mu'minka ahaa ma uusan oggolaanin arrintaas oo loo nisbaynayo isaga. Wuxuu mar kale ku celiyey xaqiiqadii uu mar walba sheegayay. Wuxuu ku yidhi, bogsiinta waxaa leh Alle Subxaanahu wa Tacaala, awoodda waxaa leh Alle Subxaanahu wa Tacaala, anigu qofna ma bogsiiyo, ee Alle ayaa wax bogsiiyo. Boqorkii hadalkaas ayuu si aad ah uga carooday, sababtoo ah wuxuu fahmay in wiilkaasi uu hadda dadka ugu yeerayo in ay caabudaan Alle Subxaanahu wa Tacaala keligiisa. Taasi waxay ahayd khatar aad u weyn oo ku soo wajahan boqortooyadiisa. Wuxuu rabay in uu ogaado qofka wiilkan fikirkiisa beddelay ama fikirkan baray. Sidaas darteeda wuxuu amray in wiilka si aad ah loo jirdilo. Wiilka yar waxaa la marsiiyey ciqaab aad u daran, balse qalbigiisa waxaa ka buuxay iimaan. Ugu dambayn, cadaadis weyn kadib, waxaa la ogaaday wadaadkii xaqa baray. Boqorkii markiiba wuxuu amray in wadaadka la soo qabto. Kadibna waxaa la keenay isagoo deggan oo wejigiisa aysan cabsi ka muuqanin oo qalbigiisana aysan wax welwel ah ka muuqanin. Sababtoo ah wuxuu yaqaanay in nolosha adduunyadu ay tahay mid kumeyl gaar ah. Wuxuu yaqaanay in xaqa lagu dhinto ay ka khayr badan tahay baatil oo lagu noolaado. Markii la hor keenay boqorka, waxaa lagu amray in uu ka noqdo diintiisa. Waxaa lagu amray in uu qirto ama in uu qiro in boqorku yahay Ilaahiisa. Waxaa lagu amray in uu ka tago tawxiidka. Balse wadaadkii waa uu diiday. Mar kasta oo lagu celiyo, jawaabtiisu waxay ahayd mid diidmo ah. Ma uusan iibsanin xaqa, ma uusan ka baqanin geerida, ma uusan dooranin badbaadada kumeel gaarka ah. Boqorkii markii uu arkay in uusan isdhiibaynin, wuxuu amray in ciqaab naxdin leh la marsiiyo. Waxaa la keenay miinshaar, kadibna waxaa la saaray bartamaha madaxiisa, kadibna si arxan darro ah ayaa labo loo kala jaray. Wadaadkii wuxuu ku shahiiday isagoo ku sugan jidkii xaqa ahaa. Wuxuu geeriyooday isagoo ku adkaystay kelimadda tawxiidka. Balse geeridiisa kuma aysan dhammaanin fariintiisa. Waxay ahayd bilowga guul aad u weyn. Kadib waxaa la keenay ninkii indhaha la'aa ee soo bogsaday. Isagana waxaa lagu amray in uu ka noqdo diintiisa. Waxaa lagu hanjabay in la dilayo. Waxaa lagu hanjabay in si aad ah loo jirdili doono. Waxaa loo ballanqaaday badbaado haddii uu xaqa ka tago. Balse isaguna waa uu diiday. Wuxuu doortay Alle Subxaanahu wa Tacaala. Wuxuu doortay jannada. Wuxuu doortay runta. Sidaas darteeda, isagana sidoo kale waxaa lagu fuliyey isla ciqaabtii hore oo kale. Wuxuu ku shahiiday isagoo ku dhawaaqaya xaqa. Labadii nin ee xaqa dadka barayay waa ay shahiideen. Hadda waxaa haray wiilkii yaraa. Boqorkii wuxuu moodayay in wiilku ka baqi doono wixii uu arkay. Wuxuu moodayay in markuu arko dhiigga iyo geerida uu diintiisa ka noqon doono. Balse boqorku ma uusan garanaynin xoogga uu leeyahay iimaankiisa. Ma uusan garanaynin waxa ku jira qalbiga qof Alle Subxaanahu wa Tacaala yaqaana. Wiilkan yar wuxuu arkay macallinkiisii oo la dilay. Wuxuu arkay saaxiibkiisii oo la dilay. Balse halkii uu ka cabsan lahaa, iimaankiisu waa uu sii xoogaystay. Boqorkii markii uu arkay inuusan ka noqonaynin diinta, wuxuu go'aansaday in uu dilo. Balse ka hor inta uusan dilin, wuxuu isku dayi doonaa siyaabo kala duwan. Ciidamo ayuu u diri doonaa. Wuxuu isticmaali doonaa buuraha dhaadheer. Wuxuu isticmaali doonaa badda. Balse mar kasta Alle Subxaanahu wa Tacaala ayaa wiilkan yar ka badbaadin doona. Waxaa soo dhowaanaysa dhacdadii ugu yaabka badnayd ee qisadan oo dhan. Dhacdadii uu wiilkan yar amarka siin doono boqorkan daalimka ah. Dhacdadii boqorkan lagu qasbi doono in uu ku dhawaaqo Bismillaahi Rabbil Ghulaam, taasoo sabab u noqon doonta in magaalada oo dhan ay hal mar wada islaamto.
فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. رواه مسلم. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo sheegay sida labada nin ay ugu adkaysteen iimaanka inkastoo la hor keenay geeri aad u xanuun badan. Tani waxay ina baraysaa in qiimaha ugu weyn ee qofka muslimka ahi uu leeyahay ay tahay diintiisa. Markii qalbiga uu xaqa si dhab ah u rumaysto, xitaa geeridu kama leexin karto jidka Alle subxaanahu wa tacaala. Geeridii wadaadka iyo ninkii boqorka la fariisan jiray kadib, boqorkii wuxuu aaminsanaa in hadda ay dhammaatay wiilka sheekadiisa. Wuxuu moodayay in wiilka yar uu qalbigiisa jabi doono. Wuxuu filayay in uu ka baqi doono geerida iyo jirdilka. Balse wuxuu boqorku garan waayay waxay ahayd in iimaanku markuu qalbiga galo uu qofka ka dhigo mid ka xoog badan ciidamada, boqorada iyo awood kasta oo dunida taalla. Wiilka yar qalbigiisa waxaa ka buuxay kalsoonida uu Alle subxaanahu wa tacaala ku qabay. Wuxuu arkay macallinkiisii oo shahiiday, wuxuu arkay saaxiibkiisii oo shahiiday, wuxuu arkayay dulmiga boqorka. Balse taa beddelkeeda iimaankiisu waa uu sii xoogaysanayay. Boqorkii markii uu arkay in uusan diintiisa ka noqonaynin, wuxuu ciidankiisa amray in ay geeyaan buur aad u dheer dusheeda ama fiideeda kore. Ujeeddadu waxay ahayd in halkaas laga soo tuuro si uu u dhinto haddii uu ka noqon waayo. Koox ciidamo ah ayaa amar kala siiyey. Waxay qaadeen wiilkii yaraa, waxay bilaabeen safar dheer. Waxay gaareen buur aad u dheer oo dadka caadiga ahi aysan si sahal ah ku fuuli karin dusheeda. Markii ay gaareen meesha ugu sarreysa, waxay isku diyaariyeen in ay halkaas ka soo tuuraan. Balse ka hor inta aysan falkaas samaynin ayuu wiilku wuxuu u jeestay Rabbigiisa subxaanahu wa tacaala. Dadka ma uusan barinin, kuma uusan tiirsanin xooggiisa, kuma uusan tiirsanin caqligiisa. Balse wuxuu u noqday Rabbigiisii abuuray subxaanahu wa tacaala. Markaas buu wuxuu yidhi, Allaahumma kfiniihim bimaa shi'ta. Allahayow kuwaan iiga kaafi wax allaala waxaad doonto igaaga kaafi. Wiilku ma uusan sheegin sida loo badbaadinayo, ma uusan sheegin hab gaar ah, balse wuxuu arrinta oo dhan u daayay Alle subxaanahu wa tacaala. Isla markiiba waxaa dhacday dhacdo la yaab leh. Buurtii ayaa gariirtay ama gilgilatay. Dhulgariir xoog badan ayaa ka dhacay. Ciidamadii waxay lumiyeen dheelitirnaantoodii. Mid mid ayayna uga soo dhaceen buurta dusheeda. Qaar waxay ku dhaceen godadka, qaarna waxay ku dhaceen dhagaxyo waaweyn, dhammaantoodna halkaas ayay ku halaagsameen. Balse wiilkii yaraa Alle subxaanahu wa tacaala waa uu badbaadiyey. Kadibna wuxuu si deggan uga soo degay buurta, kadibna wuxuu dib ugu laabtay qasrigii boqorka. Markii boqorku uu arkay isagoo hortiisa taagan ayuu si aad ah ula yaabay. Wuxuu moodayay in uu mar hore dhintay. Boqorkii ayaa weydiiyey maxaa ku dhacay ciidamadii. Balse wiilku wuxuu bixiyey jawaab kooban oo aad u weyn. Wuxuu ku yidhi, Alle ayaa igaga filnaaday. Boqorkii aad buu uga xanaaqay. Wuxuu go'aansaday in uu mar kale dilo. Balse markaan wuxuu doortay in uu hab kale isticmaalo. Wuxuu soo xushay koox kale oo askar ah. Wuxuu ku amray in ay wiilka geeyaan badda gudaheeda. Waxaa la saaray doon yar. Waxaa loo qaaday meel aad uga fog xeebta. Markii ay gaareen bartamaha badda, amarku wuxuu ahaa in haddii uu diinta ka noqon waayo halkaas biyaha gudahooda lagu tuuro. Balse mar kale wiilku wuxuu u noqday Rabbigiisa subxaanahu wa tacaala. Wuxuu ku celiyey isla ducadii hore, Allaahumma kfiniihim bimaa shi'ta. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa mar kale ducadiisa aqbalay. Doontii ayaa rogmatay. Mawjado waaweyn ayaa goobta ka kacay. Ciidamadii oo dhan waa ay quuseen.
balse wiilkii Alle subxaanahu wa tacaala ayaa badbaadiyey. Mar kale ayuu wuxuu ku soo laabtay boqorka isagoo nool. Boqorkii markaan wuxuu dareemay cabsi aad u fara badan. Wuxuu ogaaday in waxa dhacaya aysan caadi ahayn. Wuxuu fahmay in wiilka yar uu haysto taageero ka sarreysa awood kasta oo dunida taalla. Balse kibirkii ayaa weli indhihiisa daboolayay. Wuxuu diiday inuu xaqa aqbalo. Markii wiilku mar kale hortiisa yimid, boqorkii ayaa weydiiyey maxaa ku dhacay ciidamadii. Wiilku wuxuu mar kale ku jawaabay, Alle subxaanahu wa tacaala ayaa igaga filnaaday. Kadibna dhacdadii ugu yaabka badnayd ee qisada ayaa bilaabatay. Wiilkii ayaa boqorkii ku yidhi, adigu weligaaga ma awoodi doontid in aad i disho ilaa aad ka samayso waxa aan kugu amrayo. Boqorkii ayaa aad ula yaabay. Nin yar oo maxbuus ah ayaa hadda amar siinaya boqorkii awoodda badnaa. Balse boqorku wuxuu rabay in uu dilo wiilkan yar si kastaba ama wax kastoo ay ku qaadataba. Wuxuu weydiiyey maxaan sameeyaa. Wiilkuna si cad buu ugu sheegay oo wuxuu ku yidhi, dadka oo dhan hal meel isugu keen oo isugu soo ururi. Kadibna waxaad igu xirtaa geed jiriddiisa. Kadibna waxaad qaadataa fallaar ka mid ah fallaarahayga. Kadibna qaansada geli. Kadibna waxaad tiraahdaa Bismillaahi Rabbil Ghulaam. Kadibna igu sii daay oo igu gan. Markaas oo keliya ayaad i dili kartaa. Boqorkii wuxuu moodayay in uu guulaystay. Wuxuu u malaynayay in ugu dambayn uu heli doono hab uu ku dilo wiilkan. Balse wiilku wuxuu ogaa wax uusan boqorku ogayn. Wuxuu ogaa in markuu boqorku dadka hortooda uga dhawaaqo Alle subxaanahu wa tacaala magaciisa oo uu yiraahdo Bismillaah ama Bismillaahi Rabbil Ghulaam, dadka oo dhan ay wada fahmi doonaan xaqiiqada. Kadibna markii la gaaray maalinkii lagu ballamay, dadkii magaalada oo dhan ayaa hal meel isugu yimid oo la isugu yeeray. Qof walba wuxuu rabay in uu arko waxa dhacaya. Boqorkii wuxuu ku xiray wiilkii geedka jiriddiisa. Kadibna wuxuu qaatay fallaarta. Kadibna wuxuu geliyey qaansadii. Markaas ayuu wuxuu ku dhawaaqay ereygii uu wiilku ku amray. Oo wuxuu yidhi Bismillaahi Rabbil Ghulaam. Markaas ayuu fallaartii ku sii daayay. Kadibna fallaartii waxay wiilka kaga dhacday dhinaca kore ee jirka. Kadibna wiilku wuxuu gacanta saaray meeshii ay fallaartu kaga dhacday. Kadibna wuxuu shahiiday isagoo xaqa ku dhintay. Balse geeridaasi ma ahayn dhammaadka, balse waxay ahayd bilowga guushii ugu weynayd. Dadkii oo dhan waxay maqleen boqorka oo leh Bismillaahi Rabbil Ghulaam. Waxay arkeen in wiilku uusan lahayn awood gaar ah. Waxay fahmeen in wiilka rabbigiisu uu yahay midka runta ah. Waxay ogaadeen in boqorku uu been u sheegi jiray sanado badan. Kadibna waxaa halkaas ka dhacday dhacdo aanan horay loo arag. Magaaladii oo dhan waxay hal mar cod keliya ku wada dhawaaqeen Aamannaa birabbil ghulaam, aamannaa birabbil ghulaam, aamannaa birabbil ghulaam. Waxay ka dhigan tahay waxaan wada rumaynay wiilka rabbigiisa, waxaan wada rumaynay wiilka rabbigiisa. Hal daqiiqo gudahood boqorkii wuxuu waayay wixii uu sanado badan soo dhisayay. Dadkii oo dhan waxay aqbaleen tawxiidka, qalbiyadoodiina waxaa galay iimaanka. Beentii boqorkuna waa ay burburtay. Balse tani waxay ahayd bilowga aargoosiga ugu naxdinta badan. Boqorkii markii uu arkay in dadkii oo dhan ay islaameen, caro aanan la qiyaasi karin ayaa ku dhacday. Wuxuu go'aansaday in uu wada gubo dhammaan dadkii Alle subxaanahu wa tacaala rumeeyey. Wuxuu amray in la qodo godad waaweyn. Waxaa la keenay xaabo aad u tiro badan. Waxaa la shiday dab aad u xoog badan. Kadibna waxaa bilaabatay dhacdadii uu Qur'aanka Kariimka ah sida tooska ah uga hadlay. Bismillaahi Arraxmaani Arraxiim. Wassamaa'i dhaatil buruuj walyawmi almawcuud washaahidin wamashhuud. Qutila asxaabul ukhduud annaari dhaatil waquud idh hum calayhaa qucuud
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay in dembiga keliya ee dadkaas lagu gubay uu ahaa in ay rumeeyeen alle subxaanahu wa tacaala oo keliya, looma ciqaabin xatooyo, dil ama dembi kale. waxa keliya ee loo ciqaabay wuxuu ahaa iimaankooda iyo tawxiidkooda. markii uu boqorkii dulmiga badnaa arkay dadkii oo dhan wada rumaystay wiilka rabbigiisa, wuxuu galay caro iyo waali aanan la qiyaasi karin. sannado badan ayuu ku bixiyey sidii uu dadka uga dhaadhicin lahaa in uu ilaah yahay. wuxuu isticmaalay awood, ciidan, sixir iyo weliba cabsigelin iyo jirdil aad u tiro badan. balse dhammaan qorshayaashaasi waxay ku burbureen hal maalin gudaheeda. wiilkii yaraa ee uu alle subxaanahu wa tacaala doortay wuxuu noqday sabab ay magaalo dhan ku aqoonsato xaqa. boqorkii wuxuu dareemay in boqortooyadiisu ay burburtay. wuxuu ogaaday in dadku ay hadda ka wada madax bannaan yihiin cabsidiisa. markaas buu wuxuu qaatay go'aan ka mid ah go'aanadii ugu xumaa ee taariikhda bani'aadamka. wuxuu amray in la qodo godad aad u waaweyn, godad dhaadheer oo aad u qoto dheer, godad lagu talagalay in lagu shido dab aad u kulul. ciidamadiisuna waxay fuliyeen amarkiisa. magaalada hareeraheeda ayaa waxaa laga qoday godad badan, kadibna waxaa lagu guray xaabo aad u tiro badan. markii xaabada laga buuxiyey ayaa dab lagu shiday. dabka ololkiisii ayaa cirka isku shareeray. qiiqiisuna wuxuu ahaa mid meel aad u fog laga arkayay. kuleelkiisuna wuxuu ahaa mid qofka uu ka dareemayay meel masaafo dheer u jirta. boqorkii iyo ciidamadiisii waxay fadhiisteen godka hareerihiisa. waxay daawanayeen ololka, waxay sugayeen mu'miniinta. kadibna amar ayaa la bixiyey. qof walba oo rumeeyey alle subxaanahu wa tacaala ayaa goobta la keenay. waxaa la siinayay 2 doorasho oo kala ah in uu ka noqdo diintiisa ama in uu dabka ku dhaco oo godka lagu rido. mu'miniintii waxay galeen imtixaan aad u culus. mid ayaa loo keenay, rag iyo haween iyo waayeel iyo dhalinyaro. qof kasta waxaa lagu yidhi ka noqo diintaada. balse mu'miniintii waxay wada doorteen jannada, waxay doorteen iimaanka, waxay doorteen alle subxaanahu wa tacaala. markii ay diideen in ay ka noqdaan diintooda, waxaa lagu wada tuuray dabkii. ololkii ayaa liqay jirkooda, balse qalbiyadoodu waxay ahaayeen kuwo deggan. waxay ogaayeen in geeridaasi ay tahay albaabka jannada. waxay ogaayeen in nolosha adduunku ay tahay mid kooban. waxay ogaayeen in waxa alle subxaanahu wa tacaala agtiisa yaalla ay ka khayr badan yihiin wax kasta oo dunida yaalla. boqorkii wuxuu moodayay in uu guulaystay, balse xaqiiqadu waxay ahayd in mu'miniintu ay guulaysteen. jirkooda ayaa gubanayay, balse iimaankooda lama gubi karin. waxaa jirtay haweenay mu'minad ahayd oo wadatay ilmaheedii yaraa. waxay ahayd hooyo qalbigeeda uu iimaan ka buuxo. markii loo keenay godkii uu dabku ka baxayay, waxay aragtay ololka aadka u weyn. waxay aragtay dadka lagu tuurayo. waxay aragtay geeridii oo hortaagan. markaas bay qalbigeeda waxaa galay cabsi dabiici ah oo hooyo walba ay dareemi lahayd. uma aysan cabsanaynin nafteeda oo keliya, waxay u cabsanaysay ilmaheedii yaraa. ilmihiina wuxuu ahaa canug yar oo weli naaska nuugaya. markii ay soo istaagtay godka afkiisa ayay labalabaysay. hal tallaabo ayaa u dhaxaysay iyada iyo dabka. waxay ku fikirtay ilmaheeda, waxay ku fikirtay dhibaatada, waxay ku fikirtay geerida, waxayna ku sigatay in ay dib u laabato. balse markaas ayaa waxaa dhacday mucjiso kale oo aad u weyn. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu awooddiisa uga hadashiyey ilmaheedii yaraa. canugii oo weli naaska nuugaya ayaa hadal cad ku yidhi hooyadiisa, yaa umma isbirii fa innaki cala alxaq. macnaheedu uu yahay, hooyoy sabir, adigu waxaad ku taagan tahay xaqa.
subxaan allah, ilmo yar oo aanan weli hadal gaarin ayuu alle subxaanahu wa tacaala ka hadashiiyey si uu qalbiga hooyadiisa ugu xoojiyo. isla markiiba shakigii waa uu ka baxay, cabsidiina waa ay ka tagtay, qalbigeediina waxaa galay degganaan iyo kalsooni aad u fara badan. waxay ogaatay in jidka ay ku socoto uu yahay jidka xaqa ah. waxay ogaatay in waxa hor yaalla ay yihiin daqiiqado yar oo adag, kadibna ay galayso janno ay weligeeda ku waarayso. markaas bay si geesinimo leh ugu dhaqaaqday dabka xaggiisa iyadoo xambaarsan ilmaheeda. waxay ku shahiiday waddada alle subxaanahu wa tacaala. sidaas ayayna mu'miniintii ugu guulaysteen imtixaankii ugu weynaa. boqorkii wuxuu mooday in uu dadka ka adkaaday, balse ma uusan garanaynin in magacyadooda lagu qoray qur'aanka kariimka ah. ma uusan garanaynin in malaayiin qof ah ay qisadooda akhrin doonaan ilaa iyo qiyaamaha. ma uusan garanaynin in isaga lagu xusi doono ama lagu sheegi doono in uu yahay dulmiile fashilmay, halka mu'miniintana lagu xusi doono geesiyaal iimaan leh. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: qutila asxaabu اlأkhduud annaari daati اlwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu biاllaahi alcaziizi alxamiid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay in sababta keliya ee mu'miniintan loo ciqaabay ay ahayd iimaankooda. waxay rumeeyeen alle subxaanahu wa tacaala oo keliya, mana jirin dembi kale oo ay galeen. aayaddani waxay ina xasuusinaysaa in mar walba uu jiri doono dagaal u dhexeeya xaqa iyo baatilka, balse ugu dambayntii guushu ay raaci doonto dadka alle rumeeya subxaanahu wa tacaala. casharada ugu waaweyn ee aan qisadan ka baran karnana waxaa ka mid ah: 1. hal qof ayaa beddeli kara ummad dhan. wiil yar ma lahayn ciidan, ma lahayn maal, ma lahayn awood siyaasadeed, laakiin wuxuu lahaa iimaan. iimaankaas ayaa sabab u noqday in magaalo dhan ay hanuunto. 2. tawxiidku waa hantida ugu weyn. wadaadkii wuxuu geeriyooday ka hor inta uusan arkin guusha dacwaddiisa, balse alle subxaanahu wa tacaala ma dayacin shaqadiisii. abuurkiisii ayaa noqday geed weyn oo midho dhalaya. 3. dulmigu mar walba waa uu burburaa. boqorkii wuxuu lahaa awood kasta oo dunyawi ah, balse awooddaas ma aysan badbaadinin. magaciisii wuxuu ku haray taariikhda isagoo dulmiile ah. 4. samirku waa furaha guusha. mu'miniintii waxay u samreen imtixaan aad u adag. sabarkoodii ayaa sabab u noqday in ay helaan darajooyinka ugu sarsareeya jannada. allahumma ahdina الصراط المستقيم اللهم ثبتنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ugu dambayntii daawadayaasheena sharafta leh, ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. faddaallu cala alkhayri ka faacilih. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.